وعلى wanaagsan soo dhawaada dhammaantiin madalkeennan ama degalkeennan caalami official qof kasta oo ku xidhan runaaantii waa qof isbedel doon ah ama safar ku jira luuqad barasheed runaaantii halkan wax ku soo qaata talooyin kala duwan oo aan kaga bixiyo qaabkii luuqad markaa qof u dhigan lahaa experience-gayga intaan ka haysto markaan kusoo gudbiyo anigoo in muddo dheera luuqad soo dhiganayay waxaan doonayaa 3 qodob in muuqaalka ku sheego waxaan doonayaa muuqaalku inuu dheeraado 3 qodob haddii aanad samayn iska daari gashada luqadda Ingiriishta anaa kuu sheegaya waxay kugu noqonaysaa luqo ama dhibaato inaad markaa nafta aad dhibaatayso iska daari gashada luqadda Ingiriishta hataa 3 qodob aanad samaynayn 3 qodob maxay yihiin qodobka koowaad baan kuu sheegayaa oo runtii aanay luqad kasta ka kicin inagoo waxaan u soconnaa English waa immersion ama waa immersed yourself with the language taasoo laga wado luqadda dhexgal luqadda ha dhiganine dhexgal luqaddu maaha cilmiyada kale sida mathematics physics biology inta dhigato glass tagto qorato buuga dhigto intaas maaha luqadda lama dhigtee waa la dhexgalaa taasoo aan ka wado luqadda noloshaada ku xareereen waxaa laga yaabaa inaad Soomaaliya joogto aanad joogin meel luqadda ahalo dadka ku hadlay marka ay ka dhaladka ahayn ama aanad helin baba qodobkan waa isticmaalaysaa mobilkaaga platform kasta kugu jira TikTok YouTube ku doona ha noqdo hal dooni aad u rogto English su'aashu waxay noqonaysaa sideen ugu rogaa hadaba muuqaalka xiga waxaan ku soo qaadan doonaa YouTubers badan oo ajaanib iyo Soomaali isugu jira kuwaas oo doonayo inaad ku xidhnaato qof kasta oo isbedel doon ah oo doonaya inuu luqad cusub si fudud ku dhigto maanta waxaan maraynaa 2024 dhamaadkiisii taasoo adduunkiisu wada bedelay adduunkii aanu hayn halkii la aadi jiray iskuulada ama meel laga soo dhigan jiray luqad qodobka labaad ee runtii tahay inaad samaysaa waxa weeye consistency joogtayn markaad luqadin dhex geliso aad maxay tolay bilowdo inaad joogtayso oo aad aanad maalinna samayn maalinna iska din laakiin consistency ka dhigto halkan waxaan ku soo qaadan doonaa xikmad taasoo ay ka yiraahdeen markay timaado consistency waxay yiraahdeen without commitment you will never start and without consistency you will never finish without commitment ka go'naanshiya la'aan you will never start weligaa ma bilaabaysid wax wadaan kaa go'nayn without consistency joogtayn la'aan you will never finish marka waxaad ka fahmaysaa joogtayntu shayga ugu dhameeyo inay wax tahay waxaan kaga sii tegi doonaa qodobkaas joogtaynta discipline sida lagu qeexay garan maayaan ama lagu sheegay laakiin sida saxda discipline waxa weeye we're doing something you hate although you like it waa sidii wax aad necabto adag inaad samaynayso laakiin aad samayso sidii aad jeceshahay waxan waxyaabahaas oo dhan oo isbiirsaday ay laga doonayaa inaad samayso qodobka ugu dambeeya saddexaad ee muuqaalka ku soo xiraya waxa weeye practice markaad luqadda eraya dhigato ama aad soo daawato wixii ma aha san hore usoo sheegay muuqaalka xaggiisa hore xisaab ma aha physics biology wax aad macnihii fahan ahaan u qaadanayso aad dabeedna aanad macnihii practice ku samaynayn ama ku celcelinayn ma aha luqaddii waa lagu celcelinayaa practice baad samaynaysaa waxa weeye ma aha maadooyinkii kale oo kale runtii muuqaalku waa dheeraaday aad badii salaamaya wassalaamu calaykum